hay-adda khayriga ee Harwadaag oo ka shaqeysa arrimaha samafalka iyo taakulaynta dadka Soomaaliyeed ee jilicsan ayaa waxay hooy ay ku noolaadaan iyo dukaan u hirgelisay qoys tan yar oo ku nool magaalada Hargeysa. Qoyskan ayay sidoo kale hay-addu ka qaabishay kharashkii waxbarashada carruurtooda kuwaasoo markii hore tahli waayay inay ubadkooda geeyaan dugsiyada waxbarasho. Qoyskan oo ay xaaladooda nololeed ay ahayd mid aad u hooseysa ayaa hadda waxa uu furan dukaan iyo weliba booshari ay hay-adda Harwadaag u dhammaystirtay agabka dukaamaysiga kaasi oo lagu iibinayo noocyada kala duwan ee bagaashka, raashinka iyo weliba noocyada khudaarta kaasi oo ay hay-adda Harwadaag ka caawisay. Hadda waxaan dhex taaganahay dukaanka loogu deeqay qoyskan aabaha naafada ah oo hormuudka u yahay waa mid ka mid ah isbedelada walaalada muxsiniinta Soomaaliyeed ay ku guuleysteen inay ka dhabeeyaan isla markaasina ay ugu deeqaan walaalahooda jilicsan. Waa isbedel nololeed oo ku dhacay qoyskan shalay halkan ma jirinse maanta waa dukaan caadi ah oo si rasmi ah xaafadan ay wax uga gadanayaan. Aamina Maxamed Cali oo ay hay-adda Harwadaag u soo wakiilatay deeqdan ayaa waxay ka warbixisay xaaladda qoyskan iyo waliba deeqdan ay soo gaarsiisay. maanta waxaan la joognaa Aaba Mukhtaar xaafadiisi. Ilaahay baa mahad leh. Reerkan ayaantii hore waxay ahaayeen reer iska tabaalaysan, hooygu ku yar yahay, daarad aan jirin. wallaahi nimcadooda way iska badnayd. marka walaalaha muxsiniinta ay ugu horeyso Amaal Maxamed ayaan u bandhigay, iyagana degdeg bay uga soo jawaabeen. dukaankana loo sameeyay, guriyihii waa loo sameeyay, meel ilmaha u harsadaan, ciyaalkii iskuul baa loo geeyay. marka ilaahay baa mahadle dhammaan dadka muxsiniinta ee muslimiinta meel walba ay joogaan dadkooda inay saa uga damqadaan oo u soo caawiyaan waa wax wanaagsan. ilaahay miisaanka xasanaadka iyagana ha ugu kabo. maalintii ugu horeysay reerkan xaaladoodu dhulkay ahayd, ilaahay unbaa u miciinay. maantana waan soo arkay, walaalahan la wadaagay, waan u bandhigay, kabacdina codsigeygii way ka soo jawaabeen si dhaqso ah. ummad badan oo Soomaaliyeed oo muslimiin ah oo muxsiniin ah oo wanaaga jecel ka damqada dadkooda ayaa u kacay. ay ugu horeyso Amaal Maxamed iyo dadka la midka ah ee khayrka jecel samafalayaalka ah. ciyaalkii iskuul baa loo geeyay, quraankii baa loogu daray. maasha Allah, ilaahay ha barakeeyo, jazakallah khayr. aabaha qoyskan oo isagu naafa ah ayaa isaguna waxa uu ka warbixiyay deeqda ay soo gaarsiisay hay-adda Harwadaag. waxaan ahay aabaha qoyskan, waxaan ahay nin naafa. waxaan salaamayaa markaa dhammaan intii samafalkan soo geysatay ee soo caawisay markii hore xaaladeedana hore u aragtay. marka waxaan leeyahay Allah baarak, ilaahay ha ciseeyo. waana mahadsantiin macal caruurtana waxbarashada macal waa la iga bixiyey oo way ii geeyeen. marka ilaahay baa mahad leh, iyagana waan u soo ducaynayaa. waxaan u mahadnaqaynaa hay-adda Harwadaag iyo Amaal Maxamedba waan u mahadnaqaynaa, iyo hooyo Aamina oo xaaladayda soo ogeysiisay noo keentay. iyadana waan u mahadnaqnaa. Allah ka abaalmariyo dhammaan inta muslimiinta ee samafalka soo geystayba, dhammaan macal waxbarashada carruurta nooga bixiyeyna waan u mahadnaqaynaa. dhammaan waxaan leenahay dee alxamdulilah, ilaahay baa keenay, iyagana ilaahay baa noo keenay. iyagana waan u ducaynaynaa, duco weyn baa naga soo baxday.